madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kormeerkiisa waxa uu ka bilaabay xarunta dowladda hoose ee degmada Boosaaso iyo gobolka Bari isagoo halkaasi kula kulmay gudoomiyaha gobolka iyo duqa degmada Boosaaso waxaana uu madaxweynaha uu mid u booqday xafiisyada dowladda ee degmada Boosaaso iyo gobolka isagoo halkaasi kula kulmay shaqaalaha dowladda oo xilligaasi ku sugnaa xafiisyadooda markii uu kulanka uu soo dhamaaday ayuu warbaahinta uga warbixiyay madaxweynaha kormeerkiisa iyo waliba waxa uu ku soo arkay madaxweynaha Puntland xafiisyada iyo sida ay iyo dadka joogaba asalku shaqadu waa dadka runtii dad fara badan baan ku soo arkay oo qaar badan oo naqaano muddo dheer shaqaynaya khabiir ah iyo dhalinyaro badan oo fircoon oo runtii ka muuqata xafiisyada waxa kaliya ugu muhiimsan maadaama unugii dowladnimada ay tahay golayaasha noocan oo kaleeta ah waxqabadkoodu xafiisyada ma waxqabadkoodu waa meesha ay maamulaan siday noqonayso magaalada Boosaaso inkastoo aan ogahay culayska badan iyo howlaha badan ay u baahan tahay haddana waxay u baahan tahay in la isugu tago dabcan dowladda dhexena waa fadhi weyn bay u tahay waa magaalo muhiim uga ah magaalooyinka Puntland waa magaaladii dekedda ku taallay waa magaaladii dakhliga soo ururinaysay sida la adligeed waxa la rabaa wada shaqayn ballaaran iyo waxa ay mudan tahay inay hesho waan dareemi karaa culeysyada badan oo laga qabsan karaa waxyaabaha aasaasigeeni ah oo ah qurxinta magaalada iyo qaabaynteeda iyo nadaafadeeda ayaa saldhig u ah shaqooyinka dowladaha hoose ay qabtaan intaba Boosaaso waa ka liidan xaqiiqda marka loo hadlo laakiin waxaan jecelnahay haddii ilaahay inaan igala shaqeyno si dhow sida magaalada town plankeeda iyo jidadkeeda wax looga bedeli lahaa mashaariic wax ku oolan ay u imaan lahayd oo magaalada suuradeeda wax ka bedeli sidoo kale waxaan u baahannahay magaalada in shuruuc kalifaysa in la ilaaliyo nadaafadda iyo bilicda magaalada in xoogga la saaro dowladaha dadku waxay uga cabanayaan waxyaabaha ku waajibay baa laga qaadaa wax laguma celiyo dadka lacagaha waxa looga qaadaya waxa weeye in loogu adeego inkastoo adeegyadu ay kala mudan yihiin oo inta badan aan malayn karaayo kharash fara badan oo dhinaca amniga ah baxo laakiin haddana waxaa la rabaa xaafad walba inay dareento inay shaqo ka socoto waxaan ku bogaadinayaa habkan xaafadaha iyo gudoomiyaasha loo sameeyay inay xafiisyo leeyihiin inay shaqo ka socoto waa aad muhiim u tahay intaa la xoojiyo oo aysan noqon meesha la shaqo halka kaliya in xaafadaha shaqo ay ka socdaan in si wanaagsan qorshe aan xalay gudoomiyahan loo soo gudbiyay oo ku saabsan magaalada iyo sidii loo qaabeeyay sida u qaybsan tahay min xaafad ilaa iyo tabeelle ilaa qaybna waxay ka qaadanaysaa amniga dhinac waxay ka qaadanaysaa dakhli ururinta in la ogaado dhinac kale waxay ka qaadanaysaa in dadka ay ka qayb qaataan guud ahaan howlaha dalka socda dhulalka waa mushkiladaha u badan ee meel walba ka jira Soomaalida lagu imtixaano dhulkii oo iska bannaan oo waxba laga qabsan karin ayaa haddana intaas murankiisu taagan yahay marka dowladda hoose waxaa laga rabaa iyadana in waaxda dhulalku ay si fiican inta badan uga fikirto dhulalka la bixinayo sidee noqonayaan iyo kuwa la dhisanayo waxyaabahaas oo dhan in inta badan intii la yareyn karo khilaafaadka dhinaca dhulalka in xoogga la saaro dabcan waan soo booqanay waan iga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo sida diiradaan noo soo dhaweyseen annagana waxaan ii ballan qaadaynaa si dhow inaan wada shaqeyno haddii ilaahay ka dhigo weliba magaaladan bilicdeeda inay isbedesho annaga waxaan igala shaqeynaynaa magaalada bilicdeeda inay isbedesho laakiin xaruntiina bilicdeeda inay isbedesho idinka inay taalla iska dabiici qofka wax qabta inta badan naftiisa u ilaaho marka inkastoo aan gudoomiyaha ka wada hadalnay inay meeshaan meel ku habboonba ayna ahayn xajmiga shaqada socota iyo security-ga oo mustaqbalka meel ka waasicsan in degmada ay u guurto ama wax kale halkaa u adeegsato ama si kale ha u maarayso suuqa markuu soo dhex galo iyo security-ga iyo isdhex saarnaanta dhibaato badan ay keenaysaa haddii la hadlo insha allah wada shaqayntuna hadda waa fiican tahay waana kasii kordhin doonaa
idinkana waa iniga mahad celinaynaa runtii sida wanaagsan ee shaqada inugu socoto. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa intii uu joogay magaalada Boosaaso waxa uu kulamo kala duwan u la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, isimada iyo waliba ganacsatada. Xasan Haykal, warbaahinta Daljir, Boosaaso.